kusoo dhawaada falanqayn iyo odoros la xiriira qaybta filinka filo qaybtiisa 89 waa fikrad iyo raay dhiibasho waaye marka bal adi aragtidaada dhiibo adoon xanaaqin iscaraysin aflagaada aan samaynin waxay fikrad kortaad dhiibo koronto waxay u timid maxamed amiin oo balantu ay ahayd in koronto la tababaro oo tababaro maxamed amiin amarkaasna waxaa soo bixiyey baxsan la koronto ujeedadeedu waxay tahay runtii hal mar inay waxeed adeegato oo qorshihii loo soo diray in ay samayso oo lacagtaasi ay xawisho akoon kale oo la furay lagu shubo akoonka magacaas ku furan yahay maxamed amiin runtii maxamed amiin waa soo dhoweynayaa waana wareysanayaa maxamed amiin waraysi ayuu la yeelanayaa marka wuxuu leeyahay waxyar ii sug iga raalli ahaaw ayadoo meesha fadhiso ay wuxuu u jeesanayaa shaqadii uu watay uu leeyahay shaqool yar oo qabyo ah ayaa ii dhiman aan dhammaystirayaay marka runtii waxaad moodaa habka ay iskugu xiran tahay macnaha howlgalkan isaga ah runtii hab laga soo shaqeeyey shariif halaag bannaanka ku sugayaa waxa uu imaanaya baldoos jamaal wuxuu ka shaqeynayaa qaybta farsamada oo wuxuu xirayaa kamarada ama CCTV-ga meesha ku qoran kamarada uu xirayaa inta ay koronta howsha ku jirto marka runtii waxaad ujeedaa waxa waaye howlgal si fiican looga soo shaqeeyey koronta way isdiyaar garaynaysaa maadaama uu sii jeestay waxay isku dayaysaa in ay sawir iyo macluumaad ama usernameka ama iyo bassword inay qaadato runtii wixii waa ujeedaa wixii sii diyaarsanaysaa fiican u kashinaysaa waa qof ITT waxa waaye fareeda aaminta waaye koronto marka waxay markaa tagta u diraysaa jamaal ay leedahay waa diyaar baash iga dami jamaal hadduu shaqa tagaya marka intaas waa aragtida guud runtii jamaal markuu damiye kabacdi wuxuu samaynayaa maxamed amiin ayuu mashquulinayaa marka bal u fiirsa hababka looga soo shaqeey uu isku xiraya musalsalka maxamed amiin ayuu mashquulinayaa uu leeyahay hal baalad ayaa maqan barafuunkii isaga ahay marka maxamed amiin howshiisa iska wataa korontan way shaqaysanaysaa marka tan waxaa ka soo baxaya nafis ama kansho maxamed amiin bannaanka uu ku aado korontan kabacdi ay ka adeegato marka sidaan la socno filimka waxaa waaye koronto way ku guulaysanaysaa inay lacagtii xawisho kuna xawisho akoonadii la furay ama ay u wareejiso akoonadii la furay laakiin su-aasha meesha taallaa waxay tahay falkan koronto ay fulisay oo jamaalne oo kalkaaliyaha ka ahay lacagtii markii la xawilo koronto way ku guulaysanaysaa lacagtii inay xawisho wayna xawilaysaa laakiinse lacagtaasi noqon doontaa koronto yoolkii ay lahayn inay gaaraan ani runtii sidaan qaban aaminsanan waxay tahay ayaga naftooda kooxdan mafia naftigooda ayaa dabin isku dhigayo oo master right wuxuu ogolaaday shariif halaag inuu qaato 90% shariif halaag inuu qaato laakiin waxaan aaminsanahay master right nin saaran maha iyo master baldoos laba nin oo qoslo ma aha mana cayaaraan nimankaas waxaan aaminsanahay lacagta shariif halaag in la dabagedi doono oo asina banaacda lasoo dhigi doono koronto howsheeday dhammaysatay way baxday marka hadda arrinta waxay taagan tahay dhurwaagii nirigta ama qurbaca ka goostay afka habartiina ka goostay candhada oo yiri maxay ku nuugaysaa maxay ka nuugi marka koronta lacagtan ay qaadatay ay wareejisay oo xadweyda ay ku samaysay ma noqon doontaa lacag ay ku anfacaado koronto ama haddii kale waxa waaye taasi lacagta dib ayay u dhici doontaa oo waxa waaye maxamed amiin
iyo baxsan markay isku yimaadeen ayay waxay isku daydo inay midoobaan ayay waxay isku daydo lacagtaasi in jidkeeda la mariyo koronto hawsheeda way ku guulaysatay maxamed amiin xafiiska ku soo noqday akoonkii furan wixii la xawla ayuu arkayaa waxa waaye waxay noqotay dhaga dheertaan u dhigtay ma waxa uu sugaybo gabadhiina ma joogto akoonkina waa la xawashay marka waa jamaalas kaamarada ayuu dib u furay horta qaybta halkaas ku socotaa laakiin waxaa laga rabaa maxamed amiin iyo baxsan oo noqon doonaa dad degan oo arrintan dhacday iska kaashada mise qofbu meel ayuu u waala doonaa koronto way soo carartay kaamaradana way xiran tahay maxamed amiin asigoo xanaaqsano wuxuu imaanaya jamaal marka su-aasha meesha taal waxay tahay oo qaybta kale raba inaan gudubno maxamed amiin oo warbixin siinayo baxsan marka su-aasha meesha taal taas waaye oo rabo filimka haddii la raba in lasoo gaabina loo adeegsan karo haddii la raba filimka inuu sii batane loo adeegsan karo hadda waxaa waaye baldoos iyo shilfalaag iyo koronto way israaceen jamaalne wuxuu ogaaday in howlgalkii uu fulay maxamed amiin wuxuu ballansanayaa baxsan si uu arrinta ugu sheego runtii baxsan arrintaasi waxay noqonaysaa wax ay qaadan wayso run ahaantii ee leedahay lacagta intee geysay maxaa ku dhacay maxamedina waa iska celinayaa waa isku kore wuxuu leeyahay gabadha aad soo dirtaa lacagtan xadday markii aan ku dhahay doctor cali ha u geynin inaad talada raacday ahayd marka calaa kulli xaal way isku qaylinayaan maxamed amiin iyo baxsan runtii taasina baxsan waxay aaminsan tahay maxamed amiin lacagtan inuu qaatay waa taasoo ay tahay waxay ku ballamayaan uu dejinaya maxamed amiin runtii wuu ka roonanayaa baxsan wuxuu leeyahay isdeji lacagta ma dhumi karto waxa waaye beriyaan bangiga tegaynaa bangiga waan wacay isdeji fadhiiso bangiga waa wacay bangigan tegaynaa berri lacagtan macnaha waa la ogaanaa meeshay ka baxday maxamed amiin waa daacad ayadana waa daacad laakiin maxamed amiin waa ka degan yahay markaad fiiriso baxsan maxamed amiin iyo baxsan waxay yimideen bangigii lacagta u taalay waxayna u sheegaan secretary inay rabaan in la kulmaan managerka hashim or hishaam hashim inay la kulmaan ayay rabaan managerkana uu ka ballamay in ay isku tagaan waxay si toos u galayeen managerka maadaama uu sugayey maxamed amiin iyo baxsan oo runtii muddada isla soo shaqaynayeen runtii markay soo galaan aad buu u soo dhoweynayaa waa ugu kacayaa soo dhowaaduu leeyahay laakiin wuxuu wejigooda ka akhrisanayaa in labadaba dhib uu haysto uu dhib saaran yahay oo qof waliba uu fikirayo marka wuxuu leeyahay maxaa dhacay waa wareysanayaa baxsanaa warbixintiisa leedahay lacagtiin dhan waa la qaatay akoonka waa laga baxay waa la xaday marka waa kaasa maxamed amiin wuxuu leeyahay waa la yaqaanaa cidda qaadatay gabaray ii keentay ayaa saas samaysay marka managerka wuxuu isku dayayaa in uu baaro akaunkii uu galo oo furo oo fiiriyo taas waa runtii midda keenaysa wuxuu arkay managerka markuu furay wuxuu arkay lacagtaasi in la wareejiyey oo lagu wareejiyey account maxamed amiin uu leeyahay oo kaleento wuxuu leeyahay lacagta waxaa ku hayo managerkaada marka waxaan rabaa halkaasi markay joogto haddii rabna filimkii in la soo gobo lagu soo gabagabay kara maxamed amiin ayaa la dhihi karaa lacagta asaa xaday asaa xawishay oo dacwo lagu soo oogi karaa oo halkaasi ay noqon kartaa filimkii inuu kusoo gabagababa labada xalqee soo socoto laakiinse taasi ma aaminayo inay noqonayso sababtoo ah maxamed amiin waa atooraha filimka waaye filim waxaan lagu yaqaanaa in kabalaadara markuu dhintay kabacdi atooraha oo keligiis soo haro marka taas macnaheeda aan ula jeeda ay tahay tuugadaas in la qabto oo kabacdi maxamed amiin halkaasi ceeb saliib oo ku noqdo taasna waxaa lagu gaari garaa maxamed amiin iyo baxsan oo wada shaqeeyo oo isdejiyo oo wada shaqeeyo managerka ka codsado lacagtaasi inuu qaboojiyo ama uu xiro ama uu joojiyo marka runtii waxaan rabnaa marka inaan saadalino qaybta soo socoto ee 89 managerka awood ma u yeelo doona lacagtaasi inuu xiro oo friis gareeyo oo meesheeda ay taagto oon lala bixin
marka kulan dambe xiiso leh. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Filo adduunya wax kasta ka filo.